ardaydana waa ardayda fresh hadda xafladda ama munaasabadda loogu talagalay maanta isugu yimaadeen mas'uuliyiinta jaamacadda marka hore waxaan nigu codsan lahayn magaciina noo sheegtaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdikariim Maxamed Xuseen oo dhigta sanadka koorta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yuusuf Maxamed waxaan dhigtaa sanadka koorta kale sida muuqata waxaan u maleynayaa waxaad la socoteen wacyigelintii iyo kale detailskii naga siiyay fakultiyada imika kala sheegeen dinashoodu bal maxaad u maleynaysiin inay ka suurta galeen ama maxaad u maleynaysiin inaad ka fahanteen fakultiyadii la soo bandhigay arrimooda kullay deegaanka fakultiyadu markay si fiican loo hadleen una soo bandhigeen qof kasta inuu xaq u xiran tahay choice-kiisa iyo waxyaabaha uu dooranayo waxaan u maleynayaa kullay inuu maanta fahmay arday kastaay waxa uu ku fiican yahay iyo opportunity ama fursadda uu helay hadhow macallimiintuna runtii si fiican oo soo bandhigeen ardaydana waxaan rajeynayaa inuu nin walba doorto waxa uu soo isleeyahay su-aasha xigta weydiin lahaa waxa weeye miyaad u malaynaysiin boqolkiiba 90 inaad macnaha ku guulaysan doontiin choice-yada inaad samaysaan aad rabtaan haddii la idhaahdo xaqiiqdii anu waxay ila tahay sida aragtideeda qofka boort maanta waxay dhimanku waxay soo jeediyeen waana ama sano ku saabsan ardaydu sida choice-kooda u kala raacaan laakiin bil xaqiiqatan anu waxaan aaminsan yahay emotion-koodu oo laga yara fuduudin la soo jeediyey ana in si qorshaysnayd fakultigaan gelay marka seed u aragtaan in oo marka xafladdii maanta dhacday seed u aragtaan guudaan xafladdu waxay dhacday si wanaagsan joog qurux badan oo ku dhacday good Cabdikariim runtii maanta waxaan arkaa xafladdan si wanaagsan oo u dhacday waxaan rajeynayaa inuu qof walba si fiican u fahmo aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin ardayd ka mid ah ardayda jaamacadda Amuud oo runtii aad u taqaantana sambalka dhagoolaha inaguna sharxi doonto iyadoo hadli doontana magaca adoo sambalka dhagaana ku sheegi doona afkaana ka sheegi doona magacaygu waa Roodo Ibraahim Abdi waxaan maleynayaa inaad ayaa muxuu ahaa maanta waxaad tahay ardayda fresh ee imika bilaabaysa jaamacadda maxaad ku muxuu ahaa fahmiyeento inaad gashay jaamacadda gelisa waxaan jeclahay maajirkii koowaad oo inaan marsi noqdo iyo maajirkii koowaad oo aan marsi noqdo iyo optionkii labaad oo noqdo inaan noqdo marka koowaad waxaan jeclahay inaan noqdo dhakhtarad marka labaad waxaan jeclahay inaan noqdo dietitian ama kuwa dadka khibradda ka waran arday sida maanta quality-ga jaamacaddu amba bandhiga soo bandhigay waa wax hore loo arki jiray mise waa wax qiimo leh sidee baad u aragtaa maanta runtii aniga waa maalintii ugu horeysay aan arkay ardayda oo maxaa dhahdaayay runtii waa maalintii ugu horeysay aan arko arday taas oo loo bandhigayo optionkooda waxa ay dooranayaan mustaqbalka inay noqdaan taas waxay ardayd ka mid ah jaamacadda hooda waxaan ku weydiinaa maxaa ku kalifay farta inaad dhagoolaha barataan ama deep science runtii wax kasta waxaa sabab u ah inuu qof kasta barto wax kasta oo adduunyada ugu jecel ma jiraan arday dhagoolo oo dhigta classkaaga ama jaamacadda oo adigu ka caawiso si wax u fahmi lahayn haa way dhigtaan waxaana jecelahay mustaqbalka inay noqdaan dadka ugu cadcad future-ka meel kasto ay joogaan aad baad mahadsantahay